markasta oo aad aragto ama dhegaysato mowduucyo la xidhiidha horumarinta nolosha ta shakhsiga waxa aad in badan maqlaysaa waxbaro dadaal iyo ereyo kuwaas la nooca badanka ma maqalno dariiqa saxda ah ee uu qofku markaasi hawshaas u marayo iyo fahanka sababta ay inoogu adag tahay inaan caado cusub qabatino tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad exercise ka bilowdo oo aad jidhkaaga dhisto inta ugu badan dadka waxaa kusoo dhacda markaasi inay baadhitaan sameeyaan oo ay internetka galaan oo ay baadhaan markaasi qaababka loo training gareeyo nutritionka cuntooyinka kala duwan ee la cuno iyo waxyaabo kaloo markaasi tiro badan dadka qaar waxa ay isku dayaan markaasi inay ku noqdaan khabiir oo ay wax badan ka bartaan trainingka nutritionka waxyaabaha kala duwan ee la sameeyo marka la jimicsanayo cuntooyinka la cuno ta wanaagsan ta aan wanaagsanayn waxay ku bixiyaan markaasi waqti xad dhaaf ah marka taas laftirkeeda ayaa kugu noqon karta process dheer oo kaa hor istaaga inaad qaadid tallaabadii aad doonaysay ama wixii aad doonaysid inaad qabatid waxa kaa hor istaagi kara markaasi baadhitaanka faraha badan iyo waxyaabahaas uu qofku isku dayayo inuu markaasi sameeyo taa beddelkeeda waxa gudboon door roon oo dhaanta inaad isla markiiba bilowdo kabahaaga xidhato giijisato isla maalintaas 5 daqiiqo soo orodo haddii aanay suurtagal kuu ahayn inaad gym tagto qodobka markaasi dadku ay ku kala duwan yihiin ee dadka qaarna ka dhigay markaasi qaar guulaysta oo hadafyadooda gaadha qaar kalena ka dhigay markaasi in aanay guulaysan oo sidii ay doonayeen aana noqon waxa weeyaan markaasi shayga la yidhaahdo daa'imitaanka yacni shayga consistence la yidhaahdo yacni qofku inuu daa'imo oo uu joogteeyo shay si uu markaasi u gaadho meeshii uu doonayay inuu daa'imo hawl si uu markaasi u gaadho meeshii uu hiigsanayay naftu ma jecla oo way dhibsataa daa'imitaanka hal shay waqti dheer maalmaha ugu horreysa waad xiisaynaysaa oo waxa laga yaabaa inaanay dhib kugu noqon oo waxa ku riixaya dareenka iyo go'aankii aad waqtiga dhoweyd qaadatay laakiin marka aad muddo wado xiisihii hoos ayuu u sii dhacayaa marba marka ka dambaysa sidaa awgeed adigaa lagaa rabaa inaad riixda naftaada adiga oo maankaaga isticmaalaya maadaama meesha dareenkii xiisuhu ka maqan yahay garaafyada soo socda waxaan kugula wadaagi doonaa qaababka kala duwan ee markaasi dadku ay sameeyaan ama istiraatiijiyadaha kala duwan ee ay dadku maraan marka ay doonayaan markaasi inay la qabatimaan caado cusub garaafyadani waxa ay tilmaamayaan qaybta y-da waxa ay tilmaamaysaa markaasi speedka halka qaybta x-tuna ay ka tilmaamayso timeka qofka ay ku qaadanaysa markaas garaafka koobaad ama istiraatiijiyada koobaad sida garaafka ka muuqata istiraatiijiyadani aad bay u degdeg badan tahay xawliga iska uu ku socdaana aad ayuu u badan yahay tusaale ahaan waxaad go'aansatay inaad maalin walba orodo 1 saac maadaama aad waajib culus isa saartay waxay u badan tahay inaad muddo markii aad wado aad kari weydo oo aad gebi ahaanba joojiso garaafka labaad sida uu garaafkani muujinayo qofku isma saarayo waajib iyo hawl culus oo inta ugu horreysa ee uu qofku la qabsanayo caadadaas cusub waxa uu isku dayayaa inuu wax yar sameeyo tusaale ahaan 5 daqiiqo inuu 5 daqiiqo ordo maalintiiba halkii uu saacad ka ahaa kii hore laakiin awoodda waxa uu inta ugu badan saarayaa inaanu hal maalinna gafin 5 daqiiqo haddaynu eegno garaafkan waa mid markaasi si hoose ama si aan markaasi degdeg ahayn u socda qaybtiisa hore halka dhinaca dambe uu ka tusayo markaa garaafku in horumarkii uu qofku ka sameynayay orodkaas uu kor u kacay ama uu sii badiyey daqiiqadihii uu ordayay maalin walba 5taas daqiiqo waxa aad u kordhinaysaa si tartiib ah kadib marka aad la qabsato caadadaas cusub ugu dambayn horumarka aad ka samaynaysa arrinkaasi waxa uu u kordhayaa si exponential ah
waxa aanad muddo kadib awood u yeelanaysaa inaad orodo halkii saac ee aad doonaysay bilowgii. garaafkani waxa uu muujinayaa shay si kala joogjoogsi ah loo wado laakiin gebi ahaanba aan la joojinayn oo aan meeshii laga saarayn. tusaale ahaan maalintii ugu horreysay waxaad oroday ama samaysay shaygii aad doonaysay inaad qabatinto. dhowr cisho marka aad waday ayaad joojisay. sidaa kumaad ilaabin, laakiin waxa aad dhowr cisho kadib haddana dib u bilowday inaad halkii ka sii wado adigoo markan kor u qaaday waajibkii aad isa saaraysay oo halkii ay markii hore 5 daqiiqo ka ahayd waxa aad tusaale ahaan ka dhigtay 7 daqiiqo ama 10 daqiiqo. sidaa ayaad ku waday ilaa aad ugu dambayn ka gaadhay halkii saac ee aad doonaysay ama aad ku haminaysay bilowgii. garaafkani waxa uu kaga duwan yahay kii hore, waa mid markaasi la joojinayo oo hakad ku jiro, laakiin aan gebi ahaanba shaygii meeshii laga saarayn oo aan qofku wixii total ahaan joojinayn. garaafkani waxa uu kaga duwan yahay garaafyada kale ama istiraatiijiyadani waxay kaga duwantahay kuwa kale, waa mid markaasi u socota si tartiib ah inta uu qofku ka baranayo caadadaas cusub, halka uu ugu dambayn ka gaadhayo meeshii uu markaasi hiigsanayay. qofku markaasi waxa uu si tartiib ah u dhisayaa inuu la qabatimo caadada cusub ee uu doonayay markaas inuu sameeyo. intaasaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalkan. waxaan rajaynayaa inaad markaasi wax ka kororsatay oo aad wax ka faa'iiday. tan iyo intaan mar kale kulmi doono waxaan iskaga tegayaa nabaday.